السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ardayda ku xiran channelka Sayda Academy waxaan idin leenahay maalin wanaagsan, galab wanaagsan, subax wanaagsan, habeen wanaagsan, qof walba waqti ay u tahay ayaan ku wada salaameynaa. Salaan kadib waxaan maanta qaadan doonaa casharadeenii taxanaha inuu ahaa mid ka mid ah oo casharkii toddobaad wada sheekaysigii toddobaad ama conversation 7. casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi. waxa wada sheekaysanaya waxa weeye laba qafood. Okay, what is your hobby? What is your hobby? hobby waxa weeye hibad, yani waa maxay hibadaada? qof wuxuu leeyahay my hobby is reading novels. hibadeedu waxa weeye inaan aqriyo sheekooyinka ama buugaagta sheekooyinka waa dhihi kartaa. my hobby is reading novels. hibadeedu waxa weeye inaan aqriyo sheekooyinka. Okay, ayaa la leeyahay can you tell me some information about yourself? ma ii sheegi kartaa xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan nafsadaada? can you tell me ma ii sheegi kartaa some xoogaa information about yourself, xoogaa macluumaad oo ku saabsan nafsadaada? yab ayuu leeyahay. marka yab waxaa laga wadaa yes oo kale weeye. yes I can tell you, ha waan kuu sheegi karaa. my name is Ahmed. magacaygu waa Ahmed. I learn English at Somali Educational Academy. waxaan bartaa English oo waxaan ka bartaa iskuulka facaweyn ee Somali Educational Academy ee loo soo gaabayo SEDA. Okay, haddana wuxuu leeyahay I live in Mogadishu. aniga waxaan ku noolahay Mogadishu. and I live with my parents. waxaan la noolahay waalidiinteeda. I am 20 years old. aniga waxaan jiraa 20 sano. and I am single. aniga waxaan ahay doob. and what about you? adigana wuxuu leeyahay marka qofka xiga ama washakaysiga qofka wada wuxuu leeyahay sidana my name is Abdi. magacaygu waa Abdi. I married. waan guursaday. I have 3 children. waxaan leeyahay 3 caruur. one son, hal waa wiil weeye, and 2 daughters, labana waa gabdho. I am a worker. aniga waxaan ahay shaqaale. I work waxaan ka shaqeeyaa for the Barbe Primary and Secondary School. waxaan ka shaqeeyaa iskuulka Barbe. waan ku soo celinayaa, waa akhrinayaa, aad baan akhrinayaa. what is your hobby? my hobby is reading novels. Okay, can you tell me some information about yourself? Yep, I can tell you. my name is Ahmed and I learn English at Somali Educational Academy, and I live in Mogadishu, and I live with my parents. I am 20 years old and I am single. And what about you? my name is Abdi. I am married. I have 3 children, 1 son and 2 daughters. I am a worker. I work for the Barbian Primary Secondary School. intaas ayaan ku simeynaa. dadkan waxaan xaleynahay subscribe kala saaro, ala share gareeyo. dadka aan muuqaalkan aan gaarin haloo share gareeyo si ay ugu faa'iideystaan. mar walba ku xirnaada Sayda Academy. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.